Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Cabdicasiis Cabdullaahi. Soo dhawaada Iqra Engineering. Soul Slab maanta design gareyneynaa. Waxaan design gareyneynaa Soul Slab marka waxaan u kala qaadeynaa two-way solid slab. Sidoo kale one-way solid slab. Labadan member ayaan rajeynayaa insha Allah in solid slabka aan ku design gareyno. Sideen ku kala aqoonsanayaa haddii panel ah haysatid slabkaaga inuu yahay one way ama two way? Haddii slabkaaga ly engineering loo qeybiyo lx aan ula jeedo ly dhinaca dheer oo slabkaaga iyo lx iyadana aan ula jeedo dhinaca gaaban oo slabkaaga, hadday ka yaraato two slabkaaga directly waxaan dhahaynaa two way solid slab. Sidoo kale two-way solid slabka loadku wuxuu u transfer gareeyaa laba dhinac, long iyo short. Loadkuna wuxuu u kala qaadi doonaa trapezoidal shape iyo rectangular shape. One way iyadana si lamida ly haddii loo qeybiyo lx ay ka badato two slabkaaga directly waxaan dhahaynaa one way solid slab ama la ekaato. Loadkuna wuxuu u transfer gareey doonaa by rectangular one direction ah. Rectangular shape ayuuna loadkaaga u transfer gareey doonaa. Okay, example one toos u tageynaa. Okay, engineering nashqada aan rabo inaan si sample ma aragto ugu design gareeyo waxay tahay waa nashqadan. Waa ABC waa intaan oo panel aan rajeynaa insha Allah. Marka hadda waxaan qaadanaa panelkan. Tanna marka engineering cases fara badan ay leedahay ilaa 9 case ah. Markaa fiirisid engineering caseskaa markaa fiirino, kan waa interior panel micnaheeda waxa waaye dhankan slabaa ka xigo, dhankan slabaa ka xigo, dhankan slabaa ka xigo, dhankan slabaa ka xigo. Guduhu ku jiraa afarta dhinac waa laga xigaa waa macnaha. Si lamida kan number 2 wuxuu leeyahay calaamado, hal dhinac wuxuu ku leeyahay calaamado, inta kale waxa u baxsan falaaro. Sidaas darteed saddexda falaaraha ka baxsan tahay slabaa ka xigo waa macnaha. Dhanka calaamada leh micnaheedu waxa waaye lagama xigo, way ka furan tahay, waa discontinuous marka. Okay, marka meel walbo slabkaaga aan laga xigin, slabkan aan uusan kaga dhignayn waxaan dhahaynaa discontinuous. Meel walbo oo slabkaaga slab kale kaga dhigan yahayna waxaan dhahaynaa continuous. Tusaale ahaan slabkan fiiri hadda hal dhinac oo weliba dhinaca longiga ah wuxuu leeyahay calaamad uu ka leeyahay. Micnaheedu waxa waaye dhankan uu ka furan yahay laakiin dhankan waa laga xigaa, intana waa laga xigaa, intana waa laga xigaa. Marka sidaana go'aan ku gaarina. Marka nashqadeedu kale haddaan tago markaa fiirisid tusaale ahaan slab B fiiri, dhankan waxaa ka xiga C, si lamida dhankaana waxaa ka xiga E, dhankaana waxaa ka xiga A. micnaheedu waxa waa engineer dhankan uu ku furan yahay mar walba dhanka uu ka furan yahay go'aan ku qaadanaysaa. Marka waxaan dhahayaa waa long edge discontinuous. One long edge discontinuous aan dhahayaa. Tusaale ahaan kan oo kale imaaw, kan dhankan C aa ka xiga, dhankaana I, dhankaana waa E. laakiin cabirka markaa fiirisid horta nashqadan marka saan oo kale u taalo panelkaaga wuxuu magac ku yeelanayaa positionka uu yaalo iyo cabirada uu haysto. Tusaale ahaan hadda kan cabirkiisa lagu qiimeeyay waxaa loo fiiriyay dhinaca uu ka haysto. Dhinacaan iyo dhinacaan yaa weyn, dhinacaana badan yacni waa 6 mitir, kanna waa 4. intuu ku furan yahay marka waa dhinaca 4 uu ka furan yahay. Sidaas darteed marka waxaan dhahaynaa waa short edge discontinuous. sidaana go'aan ku gaaraynaa marka engineering caseska sidaasaan ku xalineynaa. Okay, marka aniga waxaa haystaa panelkan aan haystaa. Panelkan engineering marka calaamadana waxa usoo qaatay slabkayga inay tusaale ahaan oo kale meeshaas iga tahay discontinuous. Si lamida dhankan kalena wuxuu u yahay discontinuous. Yacni calaamadaas waxaan u saartay slabka inaan ku caddeeyo inay labadaas dhinac ka yihiin discontinuous. Micnaheedu uusan slab kale ka xigin. Laba dhinac kale uu slab ka xigo.
slabkayga marka cabirkiisa dhinaca shortiga aan wuxuu ii noqday 4 meter dhinaca dheerna wuxuu ii noqday 6 meter. Okay, daatada isticmaali doonana waxay noqon doontaa FCU 20 FY 460 T10 coverka 20 isticmaali doonaa thickness of slabkayga waxaan isticmaali doonaa 150 mm. Density of concrete na 24. Engineering assuming waa very important. Sida birto kale waxyaalahaas oo dhan ina assume gareysid waa aad u wanaagsan. Okay, slabka horta ugu horeyn waa la checking gareynayaa slabkaaga inuu 1 way yahay iyo inuu 2 way yahay. haddii engineering aan fiiriyo calculatorka soo qabso slabkaaga fiiri 6 meter waxa u qaybisaa 6 meter hore waxaan usoo sheegnay ly loo qaybiyo lx 6 meter divided by 4 haddaan u qaybiyo waxay noqonaysaa 1.5 1.5 aa soo baxay sidaas darteed slabkaaga waa 2 way solid slab sababta maxay tahay wuxuu ka yar yahay 2. Okay, slab case-keygana wuxuu yahay waa 2 adjacent edges discontinuous. Slabkaaga waa 2 adjacent edges discontinuous. Marka labada kaliya aan go'aanka ku qaadan doono waxay noqon doonaan table-ka marka aadi doono waxaan go'aan ku qaadanaynaa 1.5 kan noo soo baxay iyo case-kan 2 adjacent edges discontinuous labadaan isku fiirin doonaa waan sii socon doonaa. marka engineering table-ladii waxa uu soo laabanaynaa marka waxaa isla aadinaa loading waxaa sameeynaa loading aan sameeynaa. Okay, ugu horeyn dead load kan soo raadinaynaa dead load kayga waxaa ku helayaa marka waa self weight of the slab kaaga oo lagu daray finishes kaaga marka hadda self weight ma haysta self weight oo u baahan inaan soo helo kow self weight kayga waxaa lagu helaa thickness of slab oo lagu dhuftay density of concrete. self weight kaaga marka waxaan haystaa thickness of slab kayga 150 mm haystaa waa kana waxaan ku dhufanayaa density of concrete 24 haystaa. haddii la isku dhufto marka engineering labadan 0.15 haddaan ku dhufto 24 maxaa ii soo baxaya waa 3.6 ayaa kuu soo baxaysa. Okay, finishes kaaga 1.2 qaado engineering sida yani normalka caadiga intaas inta badan ma ka badato ama waxaa qaadan kartaa 50 mm waxaa ku dhufataa 24 oo density of concrete macnaha finisheska thicknesskiisa inta badan la fiirinaya 60 mm 50 mm 55 mm ma ka badna inta badan. dead load-ka markaad tagtid waxaan ku helayaa sida hore aan soo sheegnay self weight kaaga lagu daray finisheska self weight waxaa haystaa 3.6 si lamid ah finishes kaagana waxaa haystaa 1.2 waa haystaa marka waxaa soo baxaya 4. sorry meeshaan waa 4. waxaa laga rabaa 4.8 engineering marka dead load-kayga marka waxaa lagu helaa waa self weight-kayga lagu daray finisheska haystada waxaa ku daraysaa self weight waxaa hore usoo helnay engineer 3.6 hore usoo helnay finisheskaagana waxaa haystaa 1.2 natiijada meesha kaaga soo baxaysa waxay noqonaysaa waa 4.8. haddii aan calculatorka qabsanana oo aan iska checking gareyno waxaan dhahaynaa waa 3.6 plus 1.2 waxaan dhahaynaa waa 4.8. okay, aan hore usii socono marka live load-ka isaga waxaa qaadanaysaa 1.5 for residential building ah table aa jiro bs ku siinayo residential building masaajidada hoolalka dhammaan yacni waxa u baahan tahay oo dhan adiga design gareynaysid meeshay kaaga muuqdaan live load-ka qaadanaysid table ay ku muuqdaan engineer. okay, design load-ka markaa imaano load-keena for dead load factor of safety 1.4
waxaan ku dhufanaynaa dead loadkayga plus 1.6 for live load isagana aan ku dhufanaynaa factor of safety 4.8 oo dead load hore u haysatay 1.6 oo factor of safety ahaa 1.5 oo live load ku dhufo natiijada halkaas naga soo baxaysa maxay noqonaysaa engineer marka okay 1.4 haddii aan ku dhufto haddaan ku dhufto 4.8 plus 1.6 haddaan ku dhufto engineering in 1.5 maxay ina noqon doontaa marka 9.12 engineering marka waxay noqonaysaa waa 9.12 9.12 ayaa haysanaa oo meter square ah sidoo kale engineering marka 9.12 oo per meter rabaa marka aniga inaan design gareeyo 1 meter ku dhufo hal meter isla baxaya sidaas darteed marka meter walba ka mid ah panelkaaga waxaa fuuli doona 9.12 bending moment aan rabnaa marka inaan soo calculate gareyno MSX1 MSX1 waa momentaha koowaad ee dhici doona bottom of your slab MSY1 waa momentaha labaad ee dhici doona bottom of your slab sidaas darteed labadooda waxa la isku dhahaa positive moment MSX2 waa momentaha koowaad ee dhici doona top of your slab MSY2 waa momentaha labaad ee dhici doona top of your slab waxaana la isku dhahaa negative moment marka engineering MSX1 waxaan ku helaynaa qaacidadan PSX from table aan kusoo heli doono N iyo LX qaacidooyinka aan ku helaynaa mid walba waa isku mid kulligood laakiinse natiijada meesha taala waxay tahay PSX1 waxaa noo soo baxday 0.095 PSX2 waxaa noo soo baxay 0.078 sidee noogu soo baxday marka waxay noogu soo baxday engineering waxaa ogeyn table 3.14 horta waa kana waa joognaa hadda islaabkeena hore waxaa noo soo baxay marka isku qeybay dhinaca dheer dhinaca gaaban 1.5 aa noo soo baxay case of islaabkeena wuxuu noqday 2 adjacent edges discontinuous dhankan ka soo soco engineering dhankan soo soco ilaa 1.5 imaaw dhankaana ka soo soco marka labadooda markaa isku fiirisid kabacdi 2 adjacent edges dhankan hoos waxa ugu qoran negative moment dhankan waxa ugu qoran positive moment haddii aad u baahan tahay negative moment iyada soo raac waxa ku beegaysaa 1.5 meeshay iskaga imaadan qaada marka haddaa u baahan tahay positive momentna iyada ku beeg 1.5 ku beeg tusaale ahaan hadda anaga waxaa u baahannahay 0.059 anoo soo baxay PSX1 waa positive moment okay positive moment waa momentaha koowaad dhici doona x ata isbaam soo raac way kanaa dhankan imaaw okay 1.5 kana waa kanaa soo soco waa kanaa jiddan 0.059 haddii aad u baahan tahay dhankan waa short sbam waaye laakiin haddaa u baahan tahay long sbam ama dhinaca y haddaa u baahan tahay waa kanaa positive moment waa midda ku aadan leebis si lamida kana negative moment haddaa u baahan tahay waa kanaa 15 iyo waxaa isku beegaysaa 2 adjacent discontinuous adigoo fiirinaya momentaha u baahan tahay ma negative moment ama waxaa u baahan tahay positive moment si lamida x na dhanka y na way ku aadan tahay leh ma fahantin jiray waa midda ku aadan y iyada ma u baahna inaad inta wax ka fiirisid kaliya waxaa u baahan tahay momentaha hore positivekaaga oo momentaha hore oo from muxuu ahaa short sbam aad kasoo heshay midda ku aadana toos u qaadanaysa oo y adigoo joogo columnka y adigoo joogo marka okay intaas in la fahmaa rajeynayaa marka aniga afarta shay noo soo baxda waa tanaa 0.05 0.078 0.034 iyo 0.05 intaan waxaanoo daatan marka waxaan kasoo helaynaa PSX waxaan kasoo helaynaa
from table 3.14. N waa design load, LX waa short span of slab. marka engineering intaana jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo insha Allah next lesson iyo inaan calculate gareyno bending moment iyo waxyaalaha kale noo haray ha noqdo checking deflection iyo waxyaalaha kale insha Allah. Thank you.